السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأنا سلامي وولاشي نسم سبكوكين أم بيوتي qofka nagu cusub please subscribe dheh gambaleelka meesha kaaga soo muuqan doono ku dhufo si aad u aragto cashar kastoo cusub aan soo geliyo waxaan soo hagaajiyay axbaabiye qarfo waaye oo soo shiiday maasha Allah haddii aad rabto sida aan u shiido fiidiyowga min bilow ilaa dhammaad nala daawo si aad u aragto sidaan u hagaajiyay hadduu alla idmo daawasho wacan halkan waxaa igu diyaarsan kiilo qarfa igu diyaarsan wax yar oo dhagayarana halkaan ay igu diyaarsan yihiin sidaan u ognahay qarfaha aad iyo aad wuxuu ugu fiican yahay dadka sokorta qabo iyo dadka qabo maxaa la dhahaa kolestaroolka aad iyo aad ugu fiican yahay qofkii raba inuu miisaanka isaga rido aad iyo aad ugu fiican yahay aniga ay arkaysaan hadda koor maasha Allah aan zaid u cayeelay 16 kiilo aan isaga rido alxamdulillah marka qarfaha aad iyo aad u fiican yahay miisaan rididana aad iyo aad ugu fiican yahay tijaabadaas aniga maray alxamdulillah sokor ma qabo dhiikar ma qabo kolestarool ma qabo laakiin aniga cayilan u cabay maasha Allah waan ka gaar guusha aan rabay waan ka gaaray 16 kiilo aan mar iga dhacday maasha Allah muddo waxaan aan waday oo 3 bilood aan waday 3 anoon jiim aasanin waan cabi jiray kaliya shaah ahaanan u karsan jiray sokor kuma darsan jirin marka axbaabi marka qofka bini aadanka markuu wax ka faa'iido inuu axbaabtiisa la wadaago aad iyo aad ugu fiican tahay marka saasaan idinku wadaagay marka waa aad iyo aadna wuxuu ugu fiican yahay dadka qaba xataa caado xanuunka qabo kala aad ugu fiican yahay wuu caawinaa shaah ahaan ay u karsanaysaa gabadha markay caadada ku xanuunsanayso markay shaah ahaan u karsato markaas shaah ahaantaas ku cabaysaa haddii ay dhagayaro yar ku sii darsatana ka sii fiican waxyaalo kulkulul isla wada yihiin dhagayaraha asaga filfisho kale intaas haddii isku sii shiidatan ka sii fiican haddii qarfaha kaligiisana cabtana maasha Allah aad iyo aad ugu fiican yahay xagga caadada maxaa la dhahaa kolestaroolkana aad ugu fiican yahay oo kolestaroolkana aniga ku tijaabiye maasha Allah hooyadayaan ku tijaabiye ayadana iyadoo 40 gram daawada kolestaroolka liqayso ilaahay amarkiisa 2 bilood oo kaamil markii aan siiyo qarfaha kolestaroolkii oo dhan waxay ka noqotay maasha Allah 0 way ka noqotay alxamdulillah marka kolestaroolka aad ugu fiican yahay kolestaroolka tijaabadiisana waan qaatay oo ana waalidkayga ku daaweystay ayadoo 40 gram habeen iyo subax 20 gram liqayso marka axbaabi inta la fiyo waxa fiican in qofka bini aadanka uu wax ka faa'iideysto marka axbaabi ka faa'iideysi wacan aniga aad iyo aad aan u aaminsanahay qarfahan maadaama aan waxtarkiisa dhinacyo kastaba aan ka arkay marka axbaabi hadda waa kana bacdayan ku shubatay waxaan rabaa maadaama uu tiro badan yahay makiinada balandarka kuma wada shiidi karo marka makiinada loogu talagalo oo bungaxwada lagu shiidan inaan kusoo shiita rabaa oo suuqa hore ugu qaato oo soo shiido hadduu alimado hadda waa kana waan soo shiiday oo suuqiyaan ka keenay maadaama yaro uu qarfaha badnaay waxa way balandarka intaas lagu wada shiidi karo waa ka sidaas oo igu soo baxo quruxda badan axbaabi marka axbaabi insha Allah waxaan jecelahay inay ka faa'iideysataan qofkii miisaan la dirirayo ha moogaanina qofkii kolestarool hayo ha moogaanina qofkii sokor hayo sidoo kale aad iyo aad ugu fiican yahay bahalkan qarfaha asaga dhadhan macaan ilaahay u yeelay xataa maasha Allah uma baahno inaad sokor ku darsato oo faa'iidadaas uu leeyahay marka ka faa'iideysi wacan samsamna insha Allah waxa waay wax kasto idinka faa'iidanayay aniga faa'iiday waa inii soo gudbisaa marka idinkana waxaan jeclahay insha Allah inaad ka faa'iideysataan ka faa'iideysi wacan axbaabi inta nala joogto way nala joogtay inta nagu cusubna waxaan dhihi lahaa please subscribe dheh gambaleelka meesha kaaga soo muuqan doono ku dhufo si aad u aragto cashar kasto cusub isla markii aan soo geliyo oo adigana ay ku sahlanaato inaad aragto markaas isla markiiba
أحبابي مركا خيرا نيدافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.